بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sida qoraalka ku aragta waa su-aaliyo jawaabo waan ogaynaa muuqaal xalay ay iga sugaysiin labadan isbuuc ma aqaan sababta maalinta sabtiga waan waxyar mashquula noqonaa marka sidaa darteed ayaan idinku soo deynaa caabo oo axad isniinta soo galaysa cafwan hore aan u gudagalaya su-aalaha jawaabaha maku sii fogaanay bilowga. qofka ugu horeeyay gabadhan isbuucii hore ayay isoo weydiisay waan dadkii aan dib u dhigay ee ka mid ahayd waxay tiri waxaan kuryooda anoo xaamila caadi ahaan waa la qabaa caruurna way leedahay allah u barakeeyo waxay tiri mana raba hadda diyaarumi caruur kale inaan dhalo marka micnaheeda maxay noqonaysaa qofka hadduuba uurku haminaya sidaa hore u sheegnay waa xadiisa nafs hadduu uur raadis u yahay أولاد رادس يعني بدنا أنت حديث نفسي نقنيسا مسا بشارة ربي يقول بشارينا إنه أولاد سين دون لكن قفك حالة قبل عنه كلا وحا معقولة إنه همي علاسي هموم إلا نوشهي أورك وحمل مرك هذا التفسير ككتاب يضعف عري وكقرا الآخرين حمل نسيدي سبوا وحا قاديس علاسا قاديس مرك أورك وحوت الماما sida mufasiriinta ay leeyihiin culeysyo diiqada iyo mas-uuliyad adag inay qofka dumar ay hayso hooyada wallahu yaclam. gabadha waxay tiri meel dumar iyo caruur fadhiyaan oo gidaar ah u eg sidii masjid oo kale ayaan ku duceysanayay meesha waxayna ahayd kacbadi kacbada waa masjid moogtaa kacbada waxaa waaye masjid alxaraam waa kacbada laftarkeeda waa masaajid kacbada ay ku dhex taalaa marka kacbada dhexday ku taalaa maxay ahayd waana masaajid maxay tilmaamaysaa riyaad number 1 aragtada kacbada iyo masjid alxaraam waxay tilmaamaysaa u dhawaasho rabbigaaga inaad tahay qof rabbi raali ka yahay waxay kaloo tilmaamaysaa bishaarooyin badan inuu rabbi kuugu bishaareynayo arrimo ilaahay inuu kuu soo wada arrimaha ay yihiin arrimo aada u fiican waxaa ka mid ahaan kara hidaayo haddaad tahay qof cibaadada ka fog li'annu haddaa aragtidba adigoo kacbada joogo mase masaajid alxaraam aa ku tukanaysid mase aa ku cibaadaysanaysid waxay tilmaamaysaa inuu rabbi ku jecel yahay marka gabadha waxay tiri waxaan ku riyoonay anigoo dhahay istikfaar iyadoo istikfaarsanayso istikfaarta waxay tilmaamaysaa arrimo aada u badan aniga markaan dhahay qof walba xaaladuu ku sugan yahay dadka keliya waxay loo qaateen inay gabar la qaba tahay inay maxay gabadha garoob tahay mise inay gabaraan weli guursanin tahay sidaa keligeeda maaha xaaladda nafsiyadaa ku sugan tahay hataa waa muhiim matalan hadda istikfaar waxay ku riyooday tiri gabadhan masjid alxaram anigoo jooga kacbada astaqfirullah waa tuubi ilaykan anoo ku celcelinaa caadi ahaan waxay tiri ani istikfaarta caadi ahaan waxay tiri astaqfir la waa tuubi ilaykan ma adeegsado marka istikfaar caadi astaqfirla bisaan aqriyaa taa maxay tilmaamaysaa maxay ahayd toobad okay qofka xaalka ku sugaya markaan leeyahay qof rabbi ku xiran hadduu yahay oo riyadan arko waa riyo aada u fiican waxay u tilmaamaysaa arsaaqadiisa in loo siyaadinayo baraka xoolihiisa iyo awlaadiisa iyo caafimaadkiisa wax walba arsaaqada rabbina ku arsaaqay ficlan hadduu rabbi ka fogyahay hataa qofkaanid cibaadaad ka fogyahay hataa riixun maaha laannu riyadan saa u fiican yaa arka qof qalbi fiican ha arko hataa hadduu markaasaydi cibaadaadkii wax ka gaabinahay waa qof qalbi fiican oo haddan xagga rabbina laga jecel oo rabbigiisa jecel yahay laannu riyooyinkaasaa wanaagsan walaalayaal hadda kahor maa idiin sheegay ilaahay qof walba ma tuso qof uu ogyahay inuu wanaagsan yahay uuna jecel yahay rabbigeena maadaama uu jamiil yahay wuxuu jecel yahay wax fiican maadaama uu fiican yahay qofka fiican khaasatan qofka qalbiga fiican li'annu waxaan ognahay inuu rabbi subxaana watacaala dhahay markaad dhulka iskugu naxariisataan ayaana samada idinku naxariisanaa taa marka waxay muuqajinay qof qalbi fiican oo naxariis badan inuu rabbi jecel yahay waxaa isku duuduuba alcamuum riyadaad waxay tilmaamaysaa haddaad tahay qof rabbi ku xiran arsaaqadii khayraad badan inuu rabbi kuu siyaadinayo hadday cibaadi iyo naaqisaad ay jirto khaasatan kelmadan oo waa tuubi ilayka
inuu dunuub horta anaga oo dhan dunuub waa gana qof dunuub ka mara ma laha laakiin maadaama rabbi riyo kugu tusaa waa riyo fiican inuu rabbi ku leeyahay dunuubta mise maxaasida mise waxaa ku taagan tahay kasoo noqo uuna ogyahay inaad kasoo noqonaysid yacni uu kuugu digaya kuleeyahay kasoo noqo uuna ogyahay inaad kasoo noqonaysid ayaad riyadan u aragtay wallaahu yaclam laakiin riyada isku soo duduuba waa riyo aada u wanaagsan waa riyo aada u wanaagsane insha allah maadaama ay dhahday gabadhan weli cimrada ma tegin waana awoodaa ilaahay haddaadba awoodid xooga saar meesha ugu fiican oo la tagaa meesha waay adduunka inta la noolaanaya ilaaha og intaa noolaanayna damaano ma u haysano laakiin hadda waqti xaadirkan waa ku dhaqaaqi kartaa xabiibati ilaahay ha kaa aqbalo ilaahay riidaad ha kuu rumeeyo ilaahayna ha kuu garto beetallah waxaan kaloon ka ilaabay riidan waxay tiri meesha aan tagaa awlaad iyo ciyaal iyo waxaa joogay dumarka sidooda waa adduun iyo awlaada waxaa yacni adduunkiiyo maxay mashquulaadkiisa rubama adiga waxaa riidaa u aragtay ayba tahayba inaad kaga mashquushay adduunka iyo howlihiisa aad kaga mashquushay inaad tagtid beedka allah wallaahu yaclam xabiibati ilaaha og laakiin riidaada kheyr ayay tilmaamaysaa xaalad walbaa ku sugantahay riidaada kheyr ayay ku tilmaamaysaa rabbina kuu rumeey riyada kale gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday gurigeyga oo eey jooga eegan waa eey rabaayad waayo waxay tiri qof ayaa lahoo yacni qoorta wax uga xiran okay muhiimadaan u imaado waxay tiri eega lugeyga ayuu taataabanayay eega oo gurigaaga dhex jooga muxuu tilmaamaa waa cadow daciif ah oo weliba qarsoon aada fahmeynin oona kaa agdhow lianu qof ayaa watay tiri yani waayo qofka kuuma muuqanin kuumana cadeen sax marka sidaa darteeda eega waxaa waaye qof cadow ah kaa agdhow aad kaaga dhow laakiin awood badan ma laha saameyn badan wuu kuugu yeelanaa maadaama uu lugahaaga taataabanayay saameyn yar aan dhahe way kuugu yeelanaa saameynta waxay ahaan kartaa hadal inuu kuugu dhibaateeyo mise siyaabo kale inuu kuu dhibaateeyo laakiin dhibaato xoog weyn maaha aragtida eega mar walba waxaa waaye cadow daciif ah mitala maanta codkeyga muxuu saan u yahay hergebaa ahay ugu qaata su-aasha xigta gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday timahaygoo dhaadheer oo quruxsan timaha dhaadheer walaalayaal horta waxay noqon kartaa xadiisa nafs khaasatan haddaa tahay qof markaa timihiisa korinayo mise yahay qof timaha usoo jeeda mise timaha keergareynayo xiiseynayo hadday noqoto midaasaytee waxay noqon kartaa xadiisa nafs waayo adii niyad waxaa ku haysaa timo dhaadheer quruxsan laakiin haddayna waxaa arintaa ayna jirin timaha dhaadheer waa rii wanaagsan waxay tilmaamaya cimri dheer maadaama tiri timahayga way dhaadheeraan wayna quruxsanaayeen cimri dheer rabbi kuugu arsaaqayo oo kuu sii dheerya caafimaad iyo cibaado wallaahu yaclam iyo weliba arsaaqad timahaaga dhaadheer quruxsan intaasay tilmaamaysaa ilay mufasiriinta riyooyinka wallaahu yaclam sida qoraalka idinka muuqda gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday hooyaday oo isiinaysa lacag badan oo kaash ah oo doolar ah waxay tiri EFC ku shubayo waxaa muhiim ah waa nolol maalmeedka hadda wadanka lagu nool yahay inuu arintahay laakiin muhiimadda waxaa weeye inuu lacag ku siinayo qof dhintay hooyaday way dhimatay tiri qof meed ah horta riyadiisa ani marka riyada arka waxaan u maleeyay inay xadiisa nafsi ay tahay lacag waa iska jecelnahay midaas oo kale u maleeyay laakiin maadaama hooyaday way dhimatay tiri riyada amwaadka waa xaq waana xaqiiqo qof dhintay waalidkaagoo dhinta oo ku siinayo lacag maxay tilmaameen waa rii wanaagsan camuumanba qof dhintay oo lacag ku siinayo waa rii wanaagsan waxay tilmaamaysaa isbedel nololeed marxalad adag ka gudbid insha allah marxalad ka fudud khaasatan haddii jiray diiqa maaliya xagga xoolaha haddii wax la-aan jirtay faraj ilaahay rabbi mardhow rabbi kuu fura wallaahu yaclam waxay kaloo tilmaamaysaa maadaama lacagta ay kaashaheed xoolo xalaal ah arsaaqad waasic ah sidoo kale waxay tiri lacagta waxay ahayd doolarkan maadaama uu yahay lacagaha awoodda leh baabarka leh uu ka mid yahay sidaa darteed waa xoolo miisaan leh culus yacni sidoo kale faraj iyo xasilooni ammaan rabbi
maadaamay ku dhehaysa yani moobeelka ku shubo yani xafid waay xafidin xagga rabbi wallahu yaclam iyo aamaano dhowrsanaan wallahu yaclam laakiin riida yani ay fiican tahay riida isku soo duduubo waxay tilmaamaysaa arsaaqad xalaal ah oo ballaaran waasica. su-aashan kaloo xigta sida qoraalkaada idinka muuqdo gabadha muuqaalka ee qoraalkeeda wuu dheeryahay riideedan way dheer tahay micnooyin aad u badan way tilmaamaysaa yani marmar waxaa jirta riida dheer tahay micnooyinkeedana yaryihiin laakiin midda hadda waxaa ku jira aayatul kursi xawqalada istikfaarta waxyaabo badan aqrintooda maxay noqonaysaa micnooyinkooda sidaa darteed waxay noqonaya inaa muuqaalkaas usoo sameeyo insha allah beri inay dulqaata isku day lianu hadda muuqaalka hadooba 12 daqiiq meelaha marooya kuma filnaan karo muuqaalkina xoogu dheeray marabo sababtaan soo qaadanaya dadka dambe qoraaladooda waxaa weye waa dadkii facebook iga soo weydiiyey habeen hore qoraal ahaan laakiin dadkii cod ahaan iga soo weydiiyey waa dadkii ugu horeeyey aan su-aalahooda idin soo jawaabay sidaa darteed waxaan jeclaanahay qof walba oo su-aashiisa jawaabteeda helaha inuu qeybta commitee kusoo qora waa mahadsan tahay mise waan haystaa waa mahadsantahay taa muhiima waa haystaa riideeda waa helay keliya. masajkan wuu dheeryahay sida idinka muuqata gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday aabahii oo dhintay ani walaalkii oo qabrigiisa soo booqanay kabacdi qabrigaas furay adi almuhiim masajku wuu dheeryahay waa akhrisan kartaan aniga inta muhiimad waa kala soo baxay. haddii aan kala qaado si taxadar leh aan u fasiro riidan waxaa horta riida dhan way wanaagsan tahay marka laga reebo meydka oo ku dhahay madaxa ay xanuunaay marka arrin kalena way ii sheegtay gabadha kuley riida hoosna ma aragtaan boqoraalka wuu ku jiraa booqashada qabriga waalidkaaga horta waxay tilmaamaysaa baraka iyo xasanooni rabbi kuuga cisaaqay leeyahay ibn siriin qabriga markaad tagtay qabriga intuu isfuray ayuu aabbaha kuugu farxay ficlan inuu aabbaha ku tabaayo oo qalbiga kuuga haayo sidaadii niyadda uga heysid inuu kuuga haayo way noqonaysaa sidoo kale way noqonaysaa raaxatalbaal oo ku qabo daartii aakhiro. kabacdi wuxuu ku weydiiyey ciyaalka maxaad u soo wadi weydi ciyaalka aadna waxaa tiri ani la imaaday inaan kusoo booqday yani ilmaha ma soo wadan waxa iyadoo kaa wareysanaa waxa ayuu yani arin ayaa jirta ma ogtahay horta meydka inuuna dareemayaan dadka adduunka jooga inay dareemayaan dadka dhintay waxay kaloo noqon kartaa mas-uuliyadda familka iyo mise silata raximka waayo waxaad sheegtay inaad dibadda aad jirtid waxyaabaha inuu weliba aaba kaagala dardaarmayo way noqon kartaa inuu kuu baahnaa matalan maadaama ku arkay uu ku farxay inuu caadi ahaanba niyad kuu baahnaa matalan meydka siduu noogu baahan yahay wuxuu noogu baahan yahay sidee matalan tawaasul aniga meydka iskugu gaaraynaa sidee yani calaaqa xiriir dhexdeen u mari karaa wuxuu mari karaa qofkaan iga dhintay oo kale inaan arko aakhira aan aado yani mustaxiil waay sax xiriirkeen wuxuu noqonaya inaan u duceeyo inaan magaciisa si sanaan usoo qaado waxyaabaha ugu wanaagsanaa aan sheegoon ammaano inaan silata raximka waxa ugu muhiimsan taas waay riida waxa iga muuqatana midaas waay maadaama aad tiri aadna familkaas dagaalnay silata raximka inay cilad wax ka jiraan waxaan jeclaan lahaa inaan loo kuugu jawaabo laakiin habeen hore waxaa iga batay dadka su-aalooda iga batay saa darteed waan awoodi kari waay waxaa meesha ka muuqata silata raximka marmar waxaa jirta anagaan isku malayna inaan naga qaldan yahay laakiin ficlan aan qaldannahay laakiin shaydaanka noo sabraha inaana naga qaldan yahay taan waxaa cadaynaysa aabaha oo madaxa xanuunaay almuhim isku soo kokooboo riyada maxay ahayd ciyaalka oo kaala dardaarmayo arrin ayuu yani oo tabaa arrin ayaa dhibayso arrintaasna adag xaggaaga inuu qalad ka jir u baday silata raximka aada u xiriiri ducana u sameey u daceey waxna u sadaqay waxaana weliba waxaa kaloo kuu raacin lahaa ha ahaato sir sadaqada iyo ducada mid qaas kuwa ha ahaato yacni ruux bini aadan adiga kuu dhow haddee dan xoog u kalafta mooye aanan ogaanaynin. okay haddaanu soo noqono madax xanuunka madaxa waxaa macquula familka ishayshashada familka
mise inuu qof dulmi wado mise qof dulman yahay isla familka dhexdiisa. sidoo kale silata raximka way noqon kartaa inuu qof dulmi wado mise qof yacni dulmi ku dhacay, qof in la dulmiyey mise qof kale inuu wax dulminayo. koley xaalkiina gudihiina adaa og. sidoo kale haddii wax arin dhaxal jirtana midaasna taxadir badan hala sameeyo. sidoo kale meydka oo madax xanuun ka cabanayo, culimada qaarna waxay dhahayaan sadaqooyin badan iyo wuxuu u baahan yahay maxay ahayd ducooyin badan. mufasiriin kale hadda waa dhegeysan kartaa, saasay qaarkoodna dhahan. adiga riyadaada halkaanaa kusoo koobay, insha allah inay fikradda kusoo gaartaa rajeynaya. hal maadaan ku daray oo ah markaad tiri aabbo wuxuu igu dhahay waan hurdaay madax xanuunka taa kuu sheegin ka hor. riyada taa waxay tilmaamaysaa daartii aakhireen oon dhibaato ku qabin, mashaakilkiina keliya inuu murjinayo. sidaasay tahayna haddana qofka dhintay qasab waayo wuxuu u baahan yahay sadaqooyin iyo ducooyin, waayo si camalkiisa waa la xiri. maanta wax camal uu samaysan kara ma laha, rajadiisanan waa idinka. idinka haddii walaalahaaga la hadal hadday ka gaabinayaan ha ku dadaalaan ducadiisa. haddaa hataa sadaqada maarta mar walba gacanta wax lagu heenin, sujuudda mar walba maalin walba 5 waqtiyaa la tukadaa, sujuudaad ugu duceyn kartiin waalidka, taasaana kaga fiicanba wax walba. si ayaan ugu nugulahay dadka dhintay maaqaan, khaasatan markay hooyo aaba yihiin. sababtaani agoonnimada rajanimada kusoo kori miya ma aqaano. su-aasha xigta gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday anoo isku kaadiyahay. ma aqaan sababta riyooyinka ma jecli. taa waxay tilmaamaysaa horta waxaa wanaagsan walaalayaal inaad soo raacaysaan inaad xaas tihiin iyo in kale. haddaa ku celiyina qadka kuma jirto. abaayoy haddii aad tahay gabar guuray tilmaamaysaa, haddii xaas aad tahay owlaad. dadna waxay dhahayaan mufasiriin qaar waxay leeyihiin aragtida adoo isku kaadinayo waxay tilmaamaysaa arsaaqad iyo kheyr badan. sidoo kale mufasiriin qaar waxay dhahaan waa dunuub iyo macaasi, wallahu yaclam wallahu yaclam. laakiin intooda badan waxay dhahayaan aragtida adoo isku kaadinaya maaha riyo xun, wallahu yaclam. su-aashan xigta gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday anoo uunsi guriga ku shidaayo, uunsi caraf badan. tan labaad waa u imaanaynaa. aragtida uunsiga mise cadarka mise barafoonka mise wax walboo carfaayo inay subcad wanaagsan tahay horta shaki kama taagno soo maha. aragtida ayay waxyaabaha udgoon waxa way sumcad wanaagsan, siiro wanaagsan, inuu yacni magaca si sharaf leh laguu soo magac qaaday matalan dadku ku ammaanayaan wanaag ay kugu tuhmayaan hadday tahay adaab iyo dhowrsanaan iyo cafaafa iyo tahaara. sidoo kale wuxuu noqonayaa akhbaar wanaagsan, hadal fiican, wallahu yaclam. mana soo raacin gabadha iidan inay xaastaynka, laakiin muhiim ah yani muhiimad waxaa weye wuxuu tilmaamaya riyadeedan. sidoo kale guur haddaa tahay qof guursanin mise madax banaan, guurna wuu tilmaamaya. nambarka labaad waxay sheegtay guri ayaan dhisay, mise hataa hadduu guriga dhisan yahay oo dayactiraysid, dhismaha horta waa wax wanaagsan. mise aad dayactiraysid wuu dhisnaa, ciladow lee waa dayactiraysaa, uunsi aad ku shadaysaa. hagaajintaas guriga mise kala toosintiisa mise dayactirkiisi waxay tilmaamaysaa dhisataan wax wanaagsan. sidoo kale asaaqada uu tilmaamaa dhisataan qof bini aadan ah, mise caruurtaada ahaan karaa mise naftaada mise qof adiga dad kuu dhow, wallahu yaclam. haddii hadda kuugu jireen arrimo inaad hagaajisid mise aad toosisid noloshaada, way noqon kartaa inay arrinta ay ku wanaagsan tahay, laakiin salaad istiqaaro ka tuko. li'aanu dayactirka guriga mise hagaajintiisa mise kala guritaankiisi waxay tilmaamaysaa wax naftaada ku saabsan, way tilmaami kartaa. qofka ugu dambeeyo gabadha codadkeeda way badnaayeen, aaday u badnaayeen. al-akhiirna hal shay unbay kusoo hoorayeen oo ah anoo lii sixraayo, anigoo saana, anigoo laygu dhahay waa lagu sixray, anigoo uu qof sixir ugu shakina caadi ahaana dadkaasaan ugu shakiyay. abaayo shaydaayo adduunkaagii aakhiradaada kaa sii jinin, iyo adduuni aakhira maataa ku sii jinin. adduunka waxba maaha, ka waa mid laga socdoo laga tagay, iyo aakhiradaada kaa haleynin. shakiga badan wuxuu keenaa xanuuno,
wuxuu keenaa yacni xaalado wuxuu keenaa adiga riyooyin noocan oo kale aragtid waayo waxaa wahamaa la dhahaa wax rune maaha naftaada waxay kuu sabartay waayo sidaani riidaada iigu muuqata ilaaha horta quluubta og laakiin sida riidaada ku muuqata axaadiisi nafsin waaye adna xanuunaad sheegatay marka baayoy maadaama aad tiri dadkii sixrata waa ka saa oo haddii aad sixran tahay ruqya sharciya mar lagugu sameeyey ogaan lahaayeen dadkan ku shaqo leh sixirkii waxbaa jirkaa ka hadli lahaa yacni waxyaabo badanaa jiraan muuqaalka wuu dheeraa intaa ka badan inaan ku fogaado maraw laakiin kaliya hal maadaan kaaga digaa adiga mise qof walboo sidaan u fikiraayo aakhiri adduunyaa ku seegina marmar shaydaanka ayaa raba inuu balaayo iyo colaad dad isku dhoodiin dhexdayna dhigo waxaasoo ku tusina marka waa lagu sixri hiblaayaa ku sixirta hiblaayaa saan ku yeeshay ilaahayna ha ku caafiyo xabiibati riyadaadan waxaan u arkay inay tahay xadiisu nafsa halkaasaanu kusoo koobay walaalyaal wassalaamu calaykum